xiriirka jacaylku waa xiriir wax la isweydaarsado xilliyada qaar markaan aragno dhaqamada aan la dhacsanayn waxaana dareysiyaan in jacaylkii uu ku dhow yahay inuu burburo haddaan iyadoo arrintaasi jirto markuu jacaylku dhab yahay marnaba naftu ma ogolaanayso in xiriirkaasi burburo si kastoo xaalku adag yahay sidaa darteed waxaa jira tirooyin qaar ah oo kaa garabsiinaya in meesha laga saaro waxaad aqoonsan tahay xiriirkana looga dhowri karo inuu daciifo ama ay dabeeshu luxdo waa sida uu qoro website-ka Health Women dalka Mareykanka soo baxa kow in caqabadaha jira laga wada hadlo isfaham la'aantu waa sababta ugu horeysa keentay in jacaylku burburo ama lamaanaha midkood uu dareemo inaan dhinaciisa kala xiiso u hayn oo aan isku taxallujinayn inuu fahmo xalka ugu habboon ee mushkiladaasi waa in la wada hadlo oo la isku dayo in xaaladda la fahmo dhinac kastana danaynta oo lamaanihiisa u hayo uu muujiyo labo in waqti ku filan la isa siiyo waqtigu waa mid kaloo guusha xiriirka sababa waxaase dhici karta in xiriirku daciif iyo xilliyada qaar kadib marka uu qof ka mid ah lamaanaha la siin waayo waqti ku filan uga fikiri lahaa arrimaha qaar oo dhanka nolosha quseeya waxaa habboon in waqti la isa siiyo looga fikiro arrimaha masiiriga ah ee mustaqbalka quseeya iyadoo laga wada hadlayo nasashada isbuuca waqtiyada qaar si wadajir ah loo wada qaato saddex ammaanta isqadarinta labada dhinac xiriirka ay xoojisaa ammaanta isqadarinta waxay xoojisaa xiriirka inta badan wuxuu ku burburaa marka isqadarintu lunto oo dhinac ka mid ah lamaanahu uu aqoonsaday inuu qadarin loo hayn saa darteed waxa waajib ah in xoog la saaro in dhinaca kale uu ka xaqabtiro ammaan isqadarin isku mahadcelin si xiriirka u adkaado afar in xal loo helo waxa laga muransan yahay ee la kala aqoonsaday mushkilad kastoo jirta wax kasta la isku hayo waxaad ogaataa in qofka uu ra'yigiisa ku dhegnaado khilaafka cirka ay usii shareertaa iyadoo xilliyada qaar arrintu waxay noqotaa mid faraha kasii baxda marka xaaladdu heerka gaarto waxaa loo baahan yahay in qofka saddexaad oo dhexdhexaadin ka gala ama la taliya arrimaha qoyska xiriirka takhasus leh waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo xalka khilaafka laakiin xalka ugu wanaagsan waa marka ay lamaanahu iyagu si qaas ah ay u wada fadhiistaan oo ay si dhab ah u wada hadlaan oo ay ka wada doodaan habkii khilaafka looga gudbi lahaa shan qof kasta in khusuusiyaadkiisa la dhooro marka aad lamaanahagu sidii harkii oo kale aad ula socoto oo aad diiddo inaad daqiiqad ka harto waxay sun ku tahay xiriirka saa darteed waxaa habboon in qof kasto masaxadiisa goonida ah la siiyo waqtigiisa gaarka ah si kastoo la isugu kalsoon yahay waxaa habboon in qof kasta waxyaabaha u gaarka loo ixtiraamo oo aan la dhexgelin markuu isaga ogolaado mooyaan lix anaaniyadda in la jibiyo anaaniyaddu waa in mid ka mid ah labada dhinac uu iska dhaadhiciyo in xilli kastuu saxan yahay oo uu noqdo qof madax adag aan waxba laga dhaadhicin karin marka lamaanahu anaaniyadda soo dhex gasho si wanaagsan kuma wada joogaan noloshu waxay isku bedelaysaa dagaal joogto ah sidaa darteed waxaa wanaagsan in anaaniyadda meel iska dhigto aad ka fikirto hab wada jir ah iyo maxaa xiriirka u dan ah sidii waqti dheer ah uu ku sii socon lahaa